waddanka Bolivia Evo Morales kaas oo isaga baxsaday dalkiisa. Evo Morales ayaa sheegay in dalkiisa uu dib ugu soo laaban doono mar uun. Waxa uu ka helay magangelyo siyaasadeed waddanka Mexico. Mudaharaadayaal fara badan oo u dhashay waddanka Bolivia ayaa wadooyinka waaweyn ee dalkaasi soo buuxdhaafiyay kuwaas oo diidanaa doorasho la sheegay inuu ku guuleystay Evo Morales markiisii afaraad ee dalka Bolivia. Dibadbaxayaasha ayaa ka cabanayay musuqmaasuq iyo eex iyo dhibaatooyin xagga garsoorka ah oo ay ka tirsanayaan dowladda Evo Morales, waxayna ku qasbeen ugu dambeyn inuu isaga baxsado waddanka Bolivia. Dowladaha jaarka ayaa soo dhaweeyay arrintaasi iyagoo ku tilmaamay inay tahay tallaabo wanaagsan. Muwaadiniinta Bolivia ayay arrintani ku noqotay mid kedis ah, waxayna si weyn u soo dhaweeyeen in madaxweynahoodii Evo Morales uu dalka isaga baxo. Dibadbaxayaasha ayaa guryaha ugu dhacayay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ee dalkaasi. Waa tan Patricia Arce oo ah guddoomiyaha magaalada caanka ah ee lagu magacaabo Finito City ee waddanka Bolivia. Dibadbaxayaasha ayaa ugu dhacay aqalkeeda iyagoo bannaanka u soo saaray una geystay jirdil kuna qasbay inay timaha kaga jaraan kaamaradaha hortooda, iyagoo ku qasbay inay wariyaasha u sheegto inay iscasishay. Mar dambe ayay ka soo gaareen booliiska dalkaasi. Inkastoo Evo Morales baxsaday, haddana bilayska ayaa si weyn ula loolamaya dibadbaxayaal dagaal ka wada gudaha magaalada caasimadda ee dalkaas.